بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba. gaar ahaan waxaan salaamayaa bulshada reer Facebook waan aad u jeclahay. waxaan ugu bushaareynayaa marka ugu horeysa inaan u sheegayo bulshada reer Facebook inaan sameeyay markii ugu horeysay Facebook anigu aan leeyahay anigoo Asaada Cali Warsame. hore uma aanan lahayn Facebook umana aanan lahayn jirin intii hore aad arki jirteen waxaad ogaataan inay ahayd been laga bilaabo maanta ayaan leeyahay Facebook waxaad ku raadin doontaan emailkayga sowlegend@hotmail.com. marka waxaan ka codsanayaa bulshada ay jecel ee Facebooka ku xidhnayd ee moodi jirta anigu inaan leeyahay inaad u soo wareegtaan kayga runta ah. taas waa taas talabaad waa maalintii ugu horeysay ee bisha barakaysan ee Ramadaan. waxaan joogaa Nairobi waxaan dilaay marka ugu horeysa horta Ramadaan Kariim ilaahay nabad qab haynugu gaarsiiyo Ramadaanta dhamaadkeeda ciida ilaahay sanadkiisa caafimaad qab iyo cibaadasna haynugu gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed meel joogta waan ducaynaynaa in ilaahay dawlad ballaaran oo dalkeena oo dhan wada gaadha midnimada sugta nabadda sugta cadaaladda xaqiijisa inuu ilaahayna siiyo ayaan ka baryaynaa. sidaad ula socotaan aniga iyo group uu ka mid yahay Maxamed Tiri magac dheer wiilwaal waxaanu tagnay Afrika hodan ay ka mid tahay waxaanu tagnay Afrika Nairobi baanu tagnay waxaanu u tagnay ummadda Soomaaliyeed oo muddo dheer aan ka maqnaa inaan soo booqdo bacdanaaba dalkeenii ilaa hadda aynan yacniga ku kalsoonayn inaynu si buuxda u tagno halkaasaanu uga dhowaanaa waa dalkii hooye labaad Kenya ummadda Soomaaliyeed ku soo qaxday xeryaha qaxootigu ka furan yihiin ilaa hadda dadkeenu ay ku soo qulqulayaan. marka xeryaha qaxootiga ayaanu tagnay waxaanu soo aragnay ummaddeennii Soomaaliyeed oo aad u dhibaataysan intii hore ugu jirto 20 sano ku silcaysay iyo intii hadda soo gashay oo maalin walba intaasoo boqol iyo intaasoo kuna imaanayaan qalbi xumo ay ku dilayso abaar iyo colaad waa labada laga ducaysto ilaahay labadaas uu dalkeenni maanta haysta waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu naga kor qaado ummaddeennii soo jabtay. waxaan u malaynayaa waad ka aragteen miidiyaha iyo internetada ummaddeenu sidaa ay tahay waxaanu u dadaalaynaa ummadda Soomaaliyeed sidaan wax ugu qaban lahayn ilaahay baa wuxuu qaban kara. marka waxaan joogaa anigu Nairobi waan ku soomayaa haddii alla idmo sidaa daraadeed waxaan gartay ummadda Soomaaliyeed wixii aanu qaban karo inaanu qabano waxaanu garanay inaanu ummaddaas u samayno afur aanu u geyno marka ugu yaraato aanu caawino waxaanu qaban karo ama afur haato ama dhar haato way qaawan yihiin waxa ma xitaa wax xidhan ma haystaan meel ay galaan ma haystaan. marka sidaa daraadeed barnaamij baanu samaynay mucaawimada ku saabsan waxaan doonaynaa in xeryaha qaxootiga aanu tagno ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaa inay ka qayb qaadato ayaan ku codsanaynaa. waxaan idinka codsanayaa inaad garab nagu siisaan oo aad ajar ka shaqay aad ka raadsataan ajar baad ka helaysaan ummadda Soomaaliyeed magac baad ka helaysaan waa dadkiinii waa dalkiinii bay ka soo qaxeen oo isku magac baad tihiin Soomaali baad tihiin marka inaad u naxariisataan haddii ilaahay idin geeyay meel aad ku nabad gasheen oo aad maxaad gaajo kaga gabateen oo waxbarasho aad ka hesheen dadkii aad ka timaadeen ama aad la dhalateen way gaajoonayaan way rafaadsan yihiin waxbarasho ma haystaan caafimaad ma haystaan nolol wanaagsan ma haystaan aad bay u dhibaataysan yihiin. markaa ka qayb qaata ilaahay fadligii bisha barakaysan xawaaladaha Soomaaliyeed ugu soo hagaajiya idinkoo ku soo qoraya Saada Foundation ku soo hagaajiya Saada Foundation xawaaladaha soo dhiga numberka aad ku soo qoraysaan waxa weeye 254 704 482446 waa 254 704 482446
kusoo qora ilaahay ajar buu idinka siinayaa xawaaladaha Soomaaliyeed oo qof kasta uu gaari karo ha soo dhigo ha kusoo qoro Saada Foundation numberkaana ha kusoo qoro waxaan idin ballan qaadaynaa wixii aad soo dirtaan inaad feedbackiisa xisaab celintiisa caddayntiisa aad naga heshaan idinkoo kala xidhiidhaya Facebooka idinkoo ka eegaya internetada idinkoo meediyaha kala soconaya qofkii doonaya si gaar ah inuu xaqiijin u helo emailkiisa ayuu soo raacinayaa oo uu Facebooka ku soo dirayaa si aanu iyadoo faahfaahsan oo cad taswiirihii la wax walba leh inaanu u soo diro wixii faahfaahinaya intaa dheer waanu idiin soo gudbin doonaa aad baad u mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed ee i jecel ee aniguna aan jeclahay meel kastoo ay joogtaba waxaan ka codsanayaa shanta qaaradood inay arrintaa ay ka geystaan gacan weyn aad baad u mahadsantihiin ilaahay ha idin guuleeyo waa Saada Cali Warsame Ramadaan Kariim